wasiirka howlaha guud guriyeynta iyo gaadiidka Soomaaliland mudane Cali Mareexaan iyo wafdi uu hogaaminayo toddobaadkii ugu dambeeyay socdaal shaqo ugu maqnaa gobolada bariga Soomaaliland isagoo wasiirku u kuurgalay xaaladda rasmiga ee ay ku sugan yihiin wadooyinka ku yaala gobolada bariga wuxuuna wasiirku kormeeray dhismaha wadada Ceerigaabo oo ah mashruuca ugu ballaaran ee jidadka dalka lagu dhisayo oo shaqadiisu si habsami oo xawliya ay u socoto halka uu wasiirku booqday bridge-ka koowaad ee magaalada Burco oo dibadhiskiisu si habsami u socdo isagoo wasiirku dhagax dhigay dayactirka bridge-ka lagu sameeyo maalmo ka hor Cabdiraxmaan Xasan Jaamac oo kamida mas'uuliyiinta shirkadda Hirad ee gacanta ku haysa dhismaha bridge-ka Burco ee koowaad ayaa iftiimiyay sida ay hawshu u socoto iyo inta ay ku qaadanayso way dhamaatay hawshii koowaad barrito hadii Ilaahay idmo gacanta laga qaadaya oo ahayd qodaalkii iyo qalab keenistii iyo diyaarintii wixii hawsha looga baahnaa waxa iminka aragtaan halka ku aragtaan in stories halka laga bilaabay birtii la keenay sibirkii la keenay dhagixii la keenay dabeetana waxa ku xigay iminka waxa weey waa bilowga hawsha dhismaha in la bilaabo dabeetana markay iminka hawshaas ay gaadho halkeeda ay gaadho haddana wajigii labaad bay gelaysaa shubabka iyo buuxinta maayir ku-xigeenka magaalada Burco Xoday ayaa xukuumadda dhexe ku bogaadiyay dadaalka ay ka gashay samata bixinta bridge-ka koowaad ee Burco oo khasaare ka soo gaadhay roobabkii dalka ka da'ay waxaan mahad ballaaran soo jeedinay oo in badan baan sugeynaa hawsha kamaamul degmo ahaan iyo gobol ahaan waxay nagu haysay runtii culays aad muhiim ah oo weyn bay nagu haysay waxaan mahad ballaaran soo jeedinaynaa wasiirka wasaaradda howlaha guud oo arinta isagoo oo aan bil joogin xafiiska maanta runtii fuliyay waxay noo tahay guul weyn oo reer Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer wasiirka howlaha guud guriyeynta iyo gaadiidka Soomaaliland mudane Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan ayaa iftiimiyay ahmiyadda ballaaran ee ay leedahay in gacanta lagu hayo la dayactiro wadooyinka dalka iyo bariishada ahmiyad badan ugu fadhiyay buu isku socodka dalka iyo dadkaba shirkadda Hirad hawshan aan maanta dhawata dhagax dhignay bilowday waa si fiican baa shaqadii kulli waa muuqataa inay bilowdeen wax kale ma jiraan waa dadaalka wana halka ka sii wadaan kulli weynii qorshe sameynay ilaa iyo xilli roobaadka soo socday inaan ka horeeyaan aan dadaal ka dhigo inta ka horeysa ay dhamaato kaawaan soo booqanay sida shaqada uu wadaan laga soo bilaabo jidka dheer ee ka soo baxa caasimadda Hargeysa ilaa iyo magaalada Ceerigaabo wadooyinka ku yaala wasiirka howlaha guud mid ayuu u dul istaagay isagoo u kurgalay xaaladda uu jidkaasi ku sugan yahay waxyaabaha uu baahan yahay iyo meelaha ay u baahan yihiin in wax laga qabto biriishada ku yaala jidka dheer wasiirku wuxuu warbixin ka dhageystay howlwadeennada ku hawlan dayactirka iyo gacan ku haynta dhismaha wadada dheer ee labada gobol isku xidho oo qiyaastii dhan 710 kiiloomitir halka biriishada qaar oo dhaawacay roobabku soo gaadhsiiyeen uu dhagax